وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مسؤولين مراحل الدولة الدولية الصوماليين ككتف الدولة الفدرالية وغير عبدين شريف حاف وأنا صاحبي لما وفود الله سبحانه مسؤولين هم نقضين قبلها برلمانك استيديد الدولة يكون ولا وزيرها حبناها لوضع أقل الدولة الفدرالية الصومالية كترسن يونا سيدا مرتدى نقول جوغا مرتي شرف تكلا كسر خير بشيء وعشرفوا إلي يعني كل سنة وسنة الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مضر يعني يمروا المسؤولين وحمانت تجب لنا فرحات ويروها إن ما أنت هل كان يسوون وأن مضر الصوماليين ولا جاء الإنسان أيوه مستقبلك آيها حالته يجودها دنها الصوماليين gaarahaan isteediyada halkan fadhiya oo isla Soomaali way ka kooban tahay wax yar baa ka maqan marka laga reebo hooyadii oo madallada ah ay tahay xukuumadda federaalka inaan maanta caawa ay halkan fursad noo tahay oo idinka mahad celinayna ajiibitaankii ama ogolaanshiyaad ogolaateen inaad timaadaan sida sharafta aad ku timaadeen waan idin leeyahay ku soo dhawaada gurigii ku soo dhawaada سوالبا هذا أنا مفحصنا أجيبتان كي ما تجين سفر كده صومتنا وأنا ذيك بعد هذا وين يكسرون أنت كبعدي حلقة بعاوة ما أنت إلي أو ملاشان فرميسو إن هذا الله صافيرين يو درين بدن يفير بدن يجتير له ورمشاس محاكي ترى طبعا محاكي صوب بحية محاكي ترى وأنا ما أنا عدنا نجيسين شيء أنت فضل ده وشيء ماشى خير بيالا شر ما تشيله قش الشواليات بيالا صومالي باكو تشتريسا حق بيقولي واحد كونستيوشن كي دستور وصينا كذا تشتريان واحد بعته ما أنت أما حالتكم بيجا أما نبتشلا أما عتريتكم أمنا ما هذا واحد يركب والبحية أنت أنا تاريخ ذا أنا روينا كذا كذا ماذا شان عن ما أنت شرينا حنا مرينا يا مرة يصاب باللعبة هنا نسون ما عندهم كلنا نسون ما عندهم استيديو أنا قاعد قرب شوق مي لكن صاحب هذا يبغى marka waxa la yiraahdaa adduunka dhowr iyo 20 waddan federalism sida looga dhaqmo qolol waxay leedahay forum ay leeyihiin dawlad goboleedyada steediyada gobolnada magacyada doonta dhax qolay ay yaqaan sheegay doon kulankaas Professor Abdul waa hore soo jeediyay qulac forum wax la yiraahdaa inaan samaysano aan soo limaan ma hada waa waqtigii madaxweyne xasan maxamuud xilkaay ولبا أنا مرينا سنة ديو كبرنا إلى واحد كار وسوي شيء تبي لو كرب مرحلة بنسوي مرينا مد عن الأسبوع من الله وعطيه صار تبي ناش أنا لفت الورنج سؤال لي بالصورة وين حصل شيخ سنة دي دم بكسور ودي حالات وضع كبير كسوعتي وكسور ما أنت وحكيني إلى نسوع عنه أو نسوي إنه أو وضع هذا الله وأسباب بدل بحالة هالشيء ودمته يا صواب القرآن ودن كني مرحلة صومرة مركان كسوق قاضو حرية كل يسأل بقول اللي إحنا كيبان قاضني سجال سنة أو دولة رياضة أو دولة شوي صومرتي ويوجد من شاء الله من حرستي دور الشديد اللي قد لي مدحوين عبد الرشيد علي الماركة ووجد من بيجي حل قاص والله يقانا تاريخ ذي لهاي ماشي مرتي وحي هاي
iyo xaaladda kala guurka ahayd ee waddanka iyadoo isticmaar laga soo guuray waxaa loo soo guurayna uu ahaa dawladnimo aan qaadanay oo nagu cusbayd oo xisbiya la ahaa oo la iswatay ood garanaysaan mawaaqifta qaarkood markii aqoon iyo wax walba loo baaday rag badan xisbigoodii intay ka tagay yaa aqoon leh inay yidhaahdeen oo lagu soo kala tegay oo taariikhaha cabdirasaaq oo kale uu lahaa iyo aad garanaysaan aadan cadde iyo qaabka ay usoo dhambeeyeen raggaas inoogu ahaa macallimiinta ee dawladnimada hoggaaminteeda hore iska laha marxalad bay soo gaadhay sagaalkaas waxaa ka dambeeyey dawladdii militariga ahayd ee allahu naxariistay maxamed siyaad barre uu mas-uulka ka ahaa oo aan odhan karo raagitaanka kursigaa wuxuu leeyahay sidiisaba cilan marka laga soo tagay raagitaanka kursiga iyo xaaladda waddanku isbeddelku samaynayay marxaladihii aan soo maray taariikhdii kacaanka waqtiyadeedii hore qof kasta wuu garan karaa waddanku waxqabadkiisii iyo siduu ahaa iyo sida lasoo maray iyo taariikhtusay ahayd waa la garan karaa laakiin dhaqanka aan garanaynaa wuxuu yahay shay weliba hadduu raago marka dambe raad buu si u sameeyaa laakiin waan garan karnaa dawladdaasina maraaxishay soo martay iyadoo dagaallo ay gashay xaalado badan ay soo martay way lahayd iyaduna taariikh oo maanta nin waliba wuxuu leeyahay wax lagu xusuusto oo taariikha oo la odhanayo maanta war axmed sheekh maxamed islaan madoobe tolo waqtigii uu halkaa joogay maxaa taariikha uu kaga tegay iyo muxuu ugu yimid iyo maxay noqotay iyo raadka qof walba wax la isweydiinay haddii la isxaqiriyo haddii aan la isxaqirin taa marxaladeeda lahayd markaa iyada waxaan soo maray burbur iyo halaag aan leeyahay markaan dhabta u hadlayo kumaysan imanin gacanta soomaalida ee waxaa nagu jiray gacmo kale oo badan oo dheeraada oo waxaad ku garanaysaa sida aan isu burburinaynin iyo waddanku siduu u burburay maynan ahayn si leexa jeclo laga ley xataa jabhadihii baxay hadday iyagu intay yimaadaan wax qaban lahaayeen kacdoonka la abuuray oo nooc intifaada shacbiya ah intifaada shacbiya ama kacdoonka noocaasi waxbuu system buu bedeli karaa laakiin dumin inay keentay in wax kasta oo la cuno oo waddanka o dhan dib u burburo aan bilaabno waxa ugu horreeyey marka laga soo tago hogaamiye kooxeedyadii iyo isku yabyabkii faraha badnaa ee jiri jiray dawladihii ugu horreeyey ee t n g da loola jiray dawladdii ee jabuuti shirkii lagu qabtay oo cabdilqaasim madaxweynaha laga soo dhigay oo markaas la odhan karayo ma loo wada dhanaa mise looma wada dhanayn maya laakiin waxay ahayd waxay samaysay iyadoo markaa hogaamiye kooxeedyo xoog badanna ay jiraan bal raad meel wax laga qaadi karo oo war bal institution maxaan samaynaa xagee wax ka biloona waxaa loogu guulaystay wuxuu ahaa in baarlamaan la dhiso oo see loo soo dhisaya soomaalidii laandheer aan ahay laangaab baan ahay gaalgaaldhale baan ahay sidan aan ahay wax badan bay martay waxay noqotay in la yidhaahdo waxaa la yidhaha 4.5 aan keeno bal dadkii si ha lagu keeno ha la helo dad intay fadhiistaan tashada oo isugu yimaado meesha oo wax uun keeni karayo marxaladeeday lahayd dad badan baa ku shidnaa hogaamiye kooxeedyo aad u awood badan baa jiray oo lagula daaranayay qolyaha kale laftigooda maynay shiddo yarayn taasi waxay abuurtay inay ilaa xad wixii ay dhaqaajin karta soo dhaqaajiso waxaa laga dhaxlay system jiray markaas waxaa timid dawladdii t f g da oo iyadana allahu naxariista cabdullaahi yuusuf dawladdaasi waxay iyaduna sii dhaqaajisay inay baltallaabo nidaamka federaalismka ah iyo sidii loo qaadan lahaa iyo iyada iyo tii ka dambeysay ee isku darkii baarlamaanka faraha badnaa iyo sheekh shariif sida bal federaalkan iyo systemkan in la qaato noocaa loo dhaqmo iyo waxay noqotay iyaduna tallaabadii ay qaadaysay dawladdii ka dambeysay oo markaa ka baxday kumeel gaadhka ahayd ee hadda ugu dambeysay waxay iyaduna bilowday oo ay meel gaadhsiisay inay dhaqan geliso federaalkii la qaatay federaalismkii inay dhaqan geliso oo aan isleeyahay waxay kala soo kulantay sacab iyo cuquubaad iyo dhibaato fara badan hal jirtana way jirtaa soomaalida markaan xaqiiqada ka hadalno
inta badan waxaad moodaa waxa aan sheeganayno iyo waxaan rumaysanahay waa kala laba nooca markay noqoto waxaa la odhan karaa siyaalaha qaarkood dadku ma nifaaq baa ku jira say wax u jiraan qof kastoo Soomaaliya federaal baa laga hadlayaa hadda dawladdaas xasan sheekh waxaan u malaynayaa muddadii 4 sano ahayd hal sano rafaadka ugu badan Jubbaland buu ka haystay dagaalkii ugu adkaa Jubbaland iyo dhismaheedii iyo yiri koonfur galbeed iyo 6 gobol xagga u jiid waxay galeen mashaqo iyo wax aad u culus oo markaa la akhriyi karayo qof kasta marka hore uu imanayo waxa uu sheegay iyo marka dambe ficilku ay kala yara duwanaanayaan laakiin waxaan isleeyahay dawladdaasi waxay markii dambe fahantay war waddankaani federalismka iyo waxaan la qaatay amay fiican tahay in baristeedyadii intii la dhiso tallaabo hore loo soo qaado oo la isu yimaado oo tallaabadaa la qaado ay dhaxalisii karto bali waddanku meel marka ugu dambaysa meesha ugu fiican uu tegi karay waan uga mahad celinayaa 2 sano iyo 3 sano u dambaysay weliba uu aad waaqic u ahaa xukunkaasi inay wax badan oo ay xaqiijiyeen inay jireen oo garanaysaan marxaladaha qaarkood ee soo maray adaygooda iyo culayskooda inta uu leekaa iyo sidoo waxay ku guulaysteen ilaa markii ugu dambaysay Jubbaland ay aasaasaan koonfur galbeed Puntland baa jirtay galmudug iyo hirshabeelle u dambaysay waxaa iska lahaa guusheeda dawladdii uu hogaaminayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo carcar badan ee markii hore qabtay aan ku leeyahay hal sano annaga ka lumin ma annagu inaan ka lumin iyagaa naga lumin say doontaa noqoto dhinacay doontaa ha noqoto laakiin waan iska luminay iyana waa nagu mashquuleen annana waan ku mashquulay federaalka anu intaan ka aqaano sida dadku igu sawireen qolyaha aad u yaqaana aadan uma aqaanin meelaha federalismkana maana tegin waxaa la igu yidhi waxaa weeye in la kala badbaado haddee meel wax ka dhacaan sidii xamar wixii inugu qabsayeen inugu qabsanin war bal haddii xamar waxasad jawhar ha lagu badbaado haddii jawhar wax gaaraan cadaala aan ku badbaado haddii cadaalada wax gaaraan aan garowa tagno garowa hadday wax noqdaan aan baydhaba nimaano soo sidaasun maa oo wixii hal mar yoona israaci maanta hala isberti geliyo oo meeshii wax ka dhacaan meesha kale la aadi karaa hala aado macnaha anigu markaan soo ururiyo warka soomaaligiisu intaa unbuu noqonaya ma jeceshahay iyo ma jecel waa wax kale waan ku khasbannahay waxaan waan sheeganay dastuur baan ku qorannay qodobaan leenahay waxbuu noo yahay waxa weeyaa inaan intaan wax sheegano haddana wax kale ku dhaqano waxaa ka geesisan inaan marka hore nidhaahno maya ma rabno maanta dawladda waxaa laleeyahay jamhuuriyadda ma aha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya maaha waa jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya soo sidaas maaha istaydyadana dastuuriyan bay u aasaasan yihiin sidaasaa lagu aasaasay weliba markaan dhab ka hadallo maanta markaan waddanka xaaladda uu ku jira fiirino intan istaydiya hadda fadhida marka laga reebo somaliland oo geedi dheer inooga baahan iyo markaan soomaaliya ka hadlayo intan maanta marka laga reebo mas-uuliyad intee leeg baa baaqi aad u malaynaysaa intee in leeg baa maanta intaan ku dhacaysa oo mas-uuliyadda waa wax shay dhab ah mas-uuliyadda in la isla qaato oo wuxuu siduu yahay loo wada qaato oo wax meel looga wareegaan lahay federalismka markaa aan qaadanay iyo siduu yahay waxaan rabaa inaan idiin sheego shirkan caawa aan haynaayo waa mid uu qorayo dastuurka federaalka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waa xuquuq dastuuri ah oo qodobada 48 faqradda koowaad A iyo B 51 A iyo B 52 faqradda labaad iyo qodobo badan oo kale haddii dib loogu noqdo kulli ay sheegayaan shirkan iyo caawa wuxuu ku saabsan yahay ma aha marka ajanda gooniya iyo dan gaara iyo inaan wax duminay waxaan halkaan u fadhinaa inaan wax dhisno wax hagaajino soomaalinimo keeno la isula yimaado aan la kala xishoonina shayga xaqaa laga wada hadlo aan la isceebaynin oo sidaa la yeelo waxaan rabaa inaan idiin sheego madashaan dawada ay leedahay
أما أن لا أنا ودك روح خلاف سنة مجرى سواء بدنا اللي يسكو خلاف كلام مجرى سو مجرى هذا وحياله بناها كميديا اللي يسوي بدلوا كلام كائن أوفي عننا النظر الصومالية تنفذ سنة وما أنت أنا يدورت قولادية دي إنتان السنة ما أنه وضع فليسانه أنا ورهيب حقيقة وإحنا جيتنا وحانكو خلطنا وحانكو مركب دستور كلا سواق هذا بوكي يرى A B C D أنا وانكو خلطنا B D F G دولة داكو خلطنا لما برلوجيا يشان ما هو تضوء عن سويدين أنا وضع هذا واحد شراء عن سويدين عن حسابتنا ورانا نسبقا عنا واحد لحظة ما أنت يا لقاها الضيق هذا تاسدع ولا ما هذا عين كان بالنا جاي ورسل سانتج ما رسالتنا نيروبي وكذا جيبوتي وحكتا سو انت عم وحنويا يا شاكا كلنا ماشي كدل انت اسينا دحين با waxay keentay koob inaan anaga isu nimaadno stadium oo goosh aan oo aan isweydiino xaq aan leenahay iyo ka dawladdu ay leedahay oo aan qodobada dastuurka dhaxaysa ku jira lagu dhax shaqeeyo oo dawladda iyo institutionadeeda iyo soo shaqeeyaan iyo wax badan ay isweydiin oo anaga khaladka leenahay aan qaadano kala naga khaldayaan aan qaadano xukuumadii madaxda xukuumadda intaan soo yaabo ama aanu tagna ama noo yimaadeen intaan wada fadhiisano iyadoo aan coach uu jiro online keetin iyo hebel oo fadhiista iyo international community annaga Soomaaliya intaan isweydiinaan waxaa sida xaqiiqo aan naga jiraan uma socono inaan dawladdu uma socono inqiraab uma socono dhibaato inaan geysano waxaan u soconaa oo ka shaqeynayna maslaxada iyo xalka iyo wanaaga waddankaani waxa ay ku jirto waayo waxaad ogaataa inta shanteedana berri waa baxayna qof waliba wuxuu la yimaado taariikh baan qoraysa maanta waxaa leeyahay cabdullaahi ciise daakhiliyadii sidaan u soo yeeray allaha naxariista aadan cadde waxaanu soo sameeyey hebel wuxuu ka tegey waxa hebel sidanu ka hebel shar buu ahaa dhibaatada u geystay in la yidhaha markaa gobol baa kismaayo la dhigayo ku inkaarka waxaa madoobe la yidhahdaa dhigayo waddankii buu kala geeyo weyn kama raacin maya umaanaan dhigin sidaas saaxiibadayna uma haysanima intaasi waxay u yimaadeen wanaagga iyo waxqabadka iyo waddankan xaaladda uu ka jiro inaanaan gacan kale oo sheeyo ku wada hadlin so aan annagu leenahay aan ku wada hadlan maanta aniga cid kismaayo iigu amarti ma jirto gogol baan dhignay laakiin yaan ka xigay waa dhulkiini waa Soomaali marti laguma aha kaliya waa loo soo kala horreeyey wixii uu karaamka Soomaaliya lagu ogaa yaan u samaynay dhaqankii caadada Soomaaliya sidaas taasaa markaa waxay sababaysaa baahida annagu aan qabno inaan ku hayso waxaan rabaa dawladda federaalka inaan u sheego dawladda federaalka mas'uuliyadda saaran manzilatu abbay taaganta waa aabihii bay taagan iyagaa waddankan mas'uuliyadda ka saaran tahay amaam allahi wax badan baa laga weydiin doonaa laakiin waa nasiib darro hadday garan waayaan mas-uuliyadda saaranaya waxa ay tahay oo ay si kale u mashquulaan ama ay ku shaqeeyaan waxa uu yahay mandatekoodu iyo shaqadoodu waxaan ahayn inay rumaysan yihiin oo caddayn laayihiin iyaday dhibaato ku tahay waxaan rabaa dawladda inaan u sheego kulankan shar ma aha soomaalina shar uma aha dhibaato soomaaliyeedna kama shaqaynayo dawladdana wuxuu u yahay shaar qofku yaa ugu fiican qofka waxyaalaha nabigu bari jiray waxaa ka mid ah idaara saalixa qofku inuu la talin fiican leeyahay haddii aniga maanta axmed ahaan kuwa ila talinaya ay igula talinayaan wallahi sheekh xuseen furraa tahay nebigaad laba kala tirsan dhaqankii nebigaad leedahay ma adigoo kale laguma ara maxaan isu qaadanaya inaan duulayo oo wax iga maqani ayna jirin oon cirka u boodayo waxaa laga yaabaa tallaabadan qaada xumaan kale inay noqoto laakiin marka inta laga fadhiisto cabdiweligaas gacanta qabtula wareha ninkaa yarbadow waxaanaad ku hadlaysa sax maaha meeshan kaama jirto niyo wejiga sida muraayadda markaad isku fiirinayso qofka walaalkiisa muraayad buu yahay halkan wax cad baa kaaga yaala iska tirso kuma yidhi war dawladda annagaa muraayaddeedii waxa iyagu inay nasaxday leeyihin annaguna inaan saxnaan lahay kulligana asasaxiib waxaan ka hadlaynaa war waxaan isaan maya waxaan ka hadlaynaa war institutionna iyo maamul iyo heer dawladeed iyo baarlamaan iyo waxbaan leenahay maxaa yaallo maxaa khalado maxaa saxsan maxaa kale
ورينا نسمي ما أنا نقول سيارنا وحكدر بدنا نعيد كلا ضايع ورينا الميديا هذا لو نسوي جواب ولا لا في كاسو ستيت كذا 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 وحكومتنا استلتها أو مركز دماء كذا على واحد وقدم بيها ما نتيجة تغيير لنا سيدنا يلا يستم هو الدنيا كان على نسي كان الدنيا بخيلنا على زمتها أبي اللي بعتهم من نوكيس وحيقول بعضها يعني بس أو عن كهلنا أو عن جدبينين وعن رادين إن ما بدان صالح كمان مجاملين يا واحد عقب ما أنت حمدا ما تشتته عليه والغلط واحد وصعدان أنا أقول سياسي وصعدان الدم كليين بايور بحال القبيل بحاله قبيل حسن وعول قبيل من كذا لما يشتروا على كذا بيسيد قبيل كذا لما يشتروا على حد يقولوا قريبا كتير وحوي يعني أنا أقول سياسي رأيه كذا قلت وحمت ووحسوق يعني وحرم أنا الشيء خبيرات واحد جدها أو كرسي من كوفة دي إن الهجاجين أو بدانا النقلنا أو أنصحنا أو أنه كوا كلام شيء أضفنا أنا هاي إن نمشي وحرمنا خالي هذا دانا الكيدو كل دي إن الدولة أوجاتو وحق لو يقولي يعني إن تاجرته سبوت جريسو أوجاتو لا صعته قادته تلوي جي توسيان كلا جسي شيء أفضل صاحب بدي ما والله هذا دونا شركة أجد ويالن دونا ولا قد دودي دونا وحنو قد دودينا وحالين وحاجة هل عري يا شرعي مرة وحون على فضاحة مرة وحون على مصالح هذه ما أنت تانو ما أنا هذا وين كان يسوي شيء أبشروا وحنات سويس دad hortiis oo kana tahay maxaa soo baxay ninkii wax intamaya xuleeda uu ficiltamaya sababtoo dadka hortiisa ku fadaxadeeyay Soomaa isla shayga aan ku sheegay hadii intaan kaliya u yeero qolis la galaana walaal ku fudhiyo ku dunti waa timo weyn tahay sidana tahay kana jira aan ku ilaalo maxaa soo baxay wuxuu qaadanayaa at least waxa aan ku lahay inay iga ahayd masaafo qasri وحي عن كل هاي إن هذا واحد نصائح وانا وقاضنا يا ولا كل حاجة وحنا صاحب بلي وحنا نوسو شيء أنا سفرنا أو واحد كلا سكون الآن أنا سفرنا عبد الله ولا خطر ورحمة الله ولا خطر ما أو شريف ما يسي خطر وما كان واحد الله عليها قرار الدولة ده يا خالد كنت لا يا واحد يعني أنا وعن سفرنا لكن أنا نصف ولا حد يصير لفتو كتير ويسمينا عنا سميني ويجينا رسمي يعني وحال مرة واحدة مرة صدحة وعلمية وقال كان عند حالة كتير وحقوق بها إنه هراء وصعدة إنه ديب وصعدة وبعض ديب نقد وبعض استابس يتلاوي ما سوق عنا ما لا يسوق وحال دوام إنه قشاي وحكى صوب حاي إنه نقد من عدوى بوقت وحال دوام إنه قشاي وحكى صوب حاي إنه نظام أي قوة هذان حكومة الدولة الولايات المنحدة والمسؤولية وقوة كل عسى واحد نبض أي قوة درمان هي حياة نبض يسوي مادان هي واحد من يسد وأي قوة هذان كان مقادم وحانو بعضنا هنا كصوبة واحد عن شاغانا إنما نبض من ليه يسدون وحاوه الرئي والفضل كان عن شاغانا إنما نبض من ليه يسمعون حدانا الرميسنين أنا كل من كل فريستو ويستشهدون هذا هاي يعني فضلا المفضل توجه له منهين دولة سنترانا أو دولة في حب هذا فرم سيلع يوم مثلا على اسكندر أو كالفوتبول مريض عير تسف عمق وعلى قدر فريق نقطة دي بارن هاني ما بارن هذا يتهيأ واحد كويس شيء ما يدري لسه والله غير شيء لكن إنا وحنا رميسنا واحد كلام شيء صح ما نقول هذا مركب قال نقعد كده هي واحد نقطة حل جالس على واجا الله بعض الوضع كفضل لما جرب متكلم القاتل السعودية أفتح الجديد أي مقال لكن يسوى هي واحد كان قابل بدل كلام وقاب وبعض كلامه من الله هذه هذا واحد نقول أنا أحسن صاحب هذا ولا هذا
أنا مسكور معي إن أنا لفني شيء وعن هذا أنا أتهدى وعن حقه أنا ما أنت إلا لها داعي هي خلالات كتير هي استيجادة واحد حلوة كتير ما أنت قلبي يعني معرفش شو كلام يحكي كتير ولا راح يقولون لك أو حاف بوجهه أو شريك أو عبدون الموارد هنا إلى الآن أنا كنت كلام وأنا أحلل سبحان الله فبعد أن أنا يوم حاليا وأنا أبغى أن نمر كذي كان أو معي مثلا فورم كان علينا هاي ما نقصد عليه سيرا محدث وحافظ شرط قبل كان عادي وهو عادي وأنا حليتها هذه الروح كدولة فترة المنطقة قالوا خلاص كذا ما قالوا يوم غير ساعته على وسائل هذه كلا واحد أدور فلان وأنا حليت كلام الدولة اللي أنا حليت تا استيدنا مكانته وحيوان كتار waxa amariyada dhacdada hada koonfurka beedo kala ah steedka xuduudka leedahay marka la xuduudka la sameeyo biyaha la geliyo si aan gelin in soo wadayo marka uu dambeeyay isku darsan oo madaxweynaha shariif hadana balinta aan isku darsan wallahi xajar qasx dheereed axsan tahay may yurkib bixikaaya calayka may baadada xajar ka soo gashaa may yani su'aalo badan baa iman kara أنا يا مركز ساكر رسومه وأنا أنه وصلوا كله وسصحي كله سبحان كله وأنا أنه شيء من كلام وريبة استوى الجلسة مني صاحب هذا الجيل كده حين تلو كله وأنا حل كلام جيل وده ما تنسيته جيل وده نراه المكر بعد من الماء أو حل كلام سوق يعني كلام وأنا تاني تأثر مركز يسكت دار فرد يعني حل بدن يوناك بدن كي يعني ما أنت صومال وحوية الصومالية مانتا حين فرشة وحوية الصومالية مانتا إنه قالت واحد أي أباها الله إنه الدولة لك إيه دولة جادة إلى البداية المحادثة حكومة فضلا أنا صاحب هذا كلا تشعر حتى المكان كان لك أنت من سنة الله ونسي إيه هذا الماشي يدرك التقييد من هو من بيزيلة أب وين الدولة يوم أبا صنع إنه نوتي معه وقولي جودي أي مادة ما هنا قوة قادم إن المتجين أو بني النجاة المسلمين تجين أنتوا واحد وحنا أما سيدنا هو أما سيدنا هو حسن وحنا هذا ذلك إذا جيسنا أنت فضلنا المشرك شركة دان صومالية دان كتير مرحلة ده على وضع كتير إلا يبحان باهنا وحنا صحافة يسوي جوابنا إن نصرف عليهم ونسوي جوابنا باهنا أنت يا المسلمين تاجي مفتير يا الكلام كله من دستور كدعيسة وأنا سوق وأنا شيء حق أولادنا هي كمدر عن حق أولادنا من ديارنا وعن رواينا مرة والي مستعدين كما أكيد من هذا سوق البنك إيو الجيمكان وعن رواينا نقوم هذا اليوم حوين عبد الولي ولها النساء هري وقت بحوين حسن وسوء منازل كلمة والفدراليزم كيو سيقربوا لي باجرين عن قرع فارم سنسان إذا كان مع الله عند رسول شيء وقرع بالغدارة الله وحنا نقول يدك الله قرع أبغى بان العناء وكلا لهذا سياق أو كذا وحنا ما كسر سنة لكن إنه ينساه شيء هو على سكوي ديك وده كان ما أنت متشو أنا يا أحمد ستيك عن شو ما نسوي كاي ما دكتور قرين كذا واحد وده كان كتير حلو ولا قش يسقط وطلعوا يكلم يصير ما ينقل الماضي حل عن إيمانه فكشيء واحد يشتغل ولا كلام وحارب أنا قلنا ما بنروي ونوش الشيء دون الدين إلى أجلوه وحنا محصول شيء ما ترى بالعيلة ما ترى يعني كل شيء ما شيء ما نطع أنا بهنا أنا ما يدور الله حد المدينة قبل ما كان قبل وأنا درس معه وحب كذا هذه قبل ما تنتهي صاحبنا ولا بحياة وحارب شيء يعني شركة البوشة وكل ما عليه ولقدنا من تاريخ وحنا يرد أنا صاحبنا حاولنا بشيء ينادي يعني هو بنت وسط أنا بعمل إسكال هاي بوشة بدنا نجي نعرف إن شاء الله خير بيجي نجي سلام